مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان. مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا Assalaamu calaykum kusoo dhawaada channelkayga Modern Somali Food. waxaan idin leeyahay Ramadaan Kariim, Ramadaan Mubaarak, taqabbal Allahu minna wa minkum saalix al-acmaal. bisha barakeysan ee Ramadaan programmadan inoogu talagalay ayaan ku guda jirnaa. maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago fiidowgii ugu horeeyay oo ku saabsan sidaan ugu diyaar garoobay bisha barakeysan ee Ramadaan. intaanan fiidowga guda gelin, haddaad channelkayga ku cusub tahay fadlan subscribe ii saar, haddii kalena asxaabtaada iyo ehelkaaga la wadaag si ay iyaguna subscribe iigu saaraan. waxaan idinka mahad celinayaa sidaad mar walba ii dhiirigelisaan igunana wadaagtaan ra'yiyadiina kala duwan. anigana waxay iga caawinaysaa inaan fiidowyo kale oo fara badan oo ra'yigiina ku salaysan aan idiin soo saaro. waanad ku mahadsantihiin mar walba. sidaan horeba idinku soo sheegay, maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago adeegii Ramadaanta aan u soo iibsaday. waa part 1. insha Allah waxaan sameyn doonaa qaybo kale oo badan. imika waxaan bilaabay inaan isku diyaariyo bishii Ramadaan ee barakeysnayd. waxaanan soo iibsaday waxyaabihii aan isticmaali doono waqtiyada soo socda ama wiigaga soo socda haddii Ilaahay yiraahdo. sidaad arkaysaan waxaan soo iibsaday maqasyadii cuntada loo isticmaalayay, galofyadii, frame aan rabo inaan geliyo personalize Ramadaan Mubaarak inaan iisoo samaysay. sidoo kale waxa weeyaan alaabtii storage-ka ama quraaradihii ama caagadihii aan rabay inaan xawaashyada ama waxyaabaha kale aan Ramadaanta rabo inaan u isticmaalo insha Allah aan ku shubi doono. sidaad arkaysaan imika alaabaan Amazon ka dalbaday ayaabaan rabaa inaan idinla wadaago. waxa weeyaan plastic food containers, waa PPA free weeyaan, waana fiican yihiin. waxaan rabaa insha Allah inay in muddo ay hayaan. marka waxaan soo iibsaday sad isku xidhan. wuxuu ka kooban yahay sadkani 9 xabo. dabooladoodina way wataan. aad ay u fiican yihiin. size-kooduna saas yar maaha, waa size medium ah. marka haddii aad ku shubto daqiiqdoo kale, sidoo kale digirtoo kale, waxyaabaha kale aad doonayso inaad kaydiso in muddo aad rabto inay meesha kuugu jiraan, ayna kaa xumaanin ama ayna kaa leydhsanin, ayna hawadu gelin, aad ayay ku anfacaysaa. waayo daboolkoodu waxa weeyaan dabool adag, wax leydh ah ama wax naqas ah ma gelayo marka aad xidho. marka waxay wataan leybeladaas waxa weeyaan magacyada ayaa dusha lagaga qorayaa ama taariikhda aad ku shubtay cuntadaasi meesha, si aanad hadhow toole aanad uga warwarkaaga gelin inuu expire noqdeen iyo in kale. marka obviously maadaama alaab cusub toon imika soo iibsaday, marka ugu horeysa waa inaan iska maydho ama iska nadiifiyo. marka imika waxa aan guda galay inaan soo maydho storage-kaygii. xaggan ayaan ku qalajinayaa. maadkan waxaan kasoo iibsaday IKEA aan alaabta dul saarayo. aad ayuu u fiican yahay isaga laftigiisu, biyihii daadanayay ayuu qabanayaa. markaan badanaa waxyaabaha quraarada ama waxyaabaha jajabaya aan rabo inaanan weelka kale ku dhex ridin ayaanu isticmaalaa. waa imika saas ayay soo baxday 9 xabo aan soo maydhay iyo qayb ka mid ah quraaradii aan xawaashada yaryar ku shubanayay. sidoo kale waxaan idin tusayaa imika qaybta kale ee quraarada ah oo dhinaca kale aan dhigay. iyagana waxaan ku shubtaa sida timirta, cadaska, baastada, waxyaabahaas oo kale. insha Allah aniga oo wada isticmaalaya oo ku shubaya ayaad arki doontaan haddii Ilaahay yiraahdo. imika waxa weeyaan u diyaar garowgii, maydhistii iyo diyaarintoodii baan rabo inaan idinla wadaago. fiidowga ayaa sii dheeraanaya haddii kale. marka insha Allah fiidowga ku xiga fiidowgan wuxuu noqon doonaa in yar oo hordhac ayaan imika idinka tusayaa. saad arkaysaan waa aniga weelkaygii markii aan soo nadiifsadaan soo qalajistay alaabta aan ugu talagalay ku guraya hadduu Ilaahay yiraahdo. fiidowgan markaan imika idiin soo geliyo fiidowga ku xiga wuxuu noqon doonaa fiidowgan oo ah sidii aan u isticmaalay storage-kii ama alaabtii aan soo iibsaday, sidaan u kala habeeyay, sidaan wax ugu gurtay. ka ku sii xigaan wuxuu noqon doonaa aniga oo hilibkii iyo waxyaabihii kale Ramadaanta aan ugu talagalay barafka gelin doona ama sida aan u kaydiyo ayaan idinla wadaagi doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo.
aad ayaad ugu mahadsantihiin dad fiidiyogayga daawanayseen fiidiyoogan ku xiga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ma jiro hoos ruux u geeya amaba hore kuu kaxeeya naftaada adaa hogaansha adaa haya keenadeeda halkaad u jihaysa weeye kun haybood noloshu weeye kun hawlood baa ku xeeran kun bay hakisaa dhalaa